السلام عليكم وإذا السلام أصحابتا أن جعل هاي كسودة والحلقة كالتي مقالكيني وقت الله أوقاتت حلقة ما أنت وجيجي المكسو موجود ونشاشة معاي لا هذا وحنو سنايا واتبرترناي وحادون كي لقالي هرقب مقالكني سي ضعيفة وأهل دونا وحامل مرسي كدينا ميدا صاحبنا وحيو يرو عن جعل مقالة ديس مركاسة سميتي maadaama maanta tabarteeda ugu yartahay qaabkan oo hadlaya ayabna si fiican maqli kartid maanta waxa ka sheekeynaa xalqa kale oo la xiriirta jacaylka waxaan ka hadlaynaa isdhageysiga saameynta leh iyo xiriirka sida uu saameeyo in si fiican isku dhageysto effective communication in relationships muhiimada ay leedahay maxay tahay markii la dhageysto scenario yar ay sheegaya oo badan tusaale lagu soo qaato mowduucina markii laga hadlayo ka soo qaat qof xiriir leeyihiin waxa dhahday in galaas biyo u baahnahay waxa ku keenay baash shokolaate ama santa laakiin galaas biyo u baahnahay xag malaba lagu keenay waxa u baahnahay galaas biyo dahab lagu keenay galaas biyo u baahnahay gaari furiisa lagu wareejiyay qofkan waxa weydiisay wax ka badan ku siinoya dadka waxa laga yaabaa markii korka arkayna ku dhahan qofkan waxa laala wixii oo dalbaday ka fiican la siinoya ma qoostamiya macnaha baaydiis ma dhamaatay qofkan laakiin qofka wax weydiisanay waxa kaliya uu weydiisanay u baahan yahay waa galaas biyo ma weydiisan baabuur ma weydiisan dahab ma weydiisan ma garan ku exitro galaaska biyaha lagu weydiistay haddii qofkaas uu ku keeno oo qanacsan qofkan laakiin maanta waxay u weydiistaan wax kale oo la soo xariiraya taas waxa dhigayso dhageyslaanta qofkan tuu si sax u dhageysto wuxuu baahan yahay wuxuu ogaana inuu u baahan yahay kaliya galaas biyo ah marka galaas biyo u baahan tuu qofka ku dhaho galaas biyo way nasiisa empathy validation in lagu daro xiriirka empathy waxa waaye in qofka lamaanaha luisa kabiisa gashtid meesha uu taagan yahay istaajisid waa qofka galaaska biyo ku weydiisanaya oo nahay mudiminoya malabkan hadaas iyo galaaska biyo ma gumarma waa malabkan uu siina wuxuu roma siiyo haduu malab rabo qofka ma weydiisan karino isdig booskiisa waa oo xusbido qofkan waa oo caamadada u baahan yahay waa oo aad kula jooga dareen si sax u dhageyso adoo iska miirnaynin waxyaabo ereyga la dul saaray reediisa هذا اللي يسمعوا شيء قف كان محكاربة وحي أكاره سمي that's it هذه أو قف كلام هاجا وكوي تستو وحيري سيجا عاوي وكده لك كرسي ميسك لقات كالي just قابل ميسك لقات حسميني المرسي كذا إيو وحوق أنت وقال كرتاي كان يهبل أكوسو درائيو أنا محي ودري قف كمان درستي تهبل ما ودي ستة بعد هذا اللي هو إذا ودي no أنا هذه أنا ميسك لقابل تدربة that's it askata umeerin qofka haduu ku qofkan waxa rabaa aniga markaas la joogno inaan gacmo isqabsano sameeyna lacag u tirtid ama dhaada chocolate ku ama waxya ku siinano just gacanta qabso qofka that's it so how are ma karna marka dhageysiga saameynta leh marka hore waxa practice gareysa active listening like active na dhageysatid that means ina focus ka saartid qofka lamaanaha wuxuu sheegay adoo immediately jawaab ku boodini qof sheekaysan soo ku leeyahay sida adiga waxa nacabahay marka daaqadan daga sheek soo galayso oo saayda isla markaa waa bixi daaqadii xiray ma dhamaysan qof korkiisi wuxuu ku soo wadiyaa qofkan marka daaqada daga sheek soo galayso oo aadina ka maqan tahay waa nacabahay intaas ku soo wadiyaa hada laakiin si sax u dhageysto waxa fahmin qofkan wuxuu nacabiyay wuxuu rabay iyo wuxuu diiday iyo wax dhan fahmileed dan waa agfadhiisanayd daaqadii furan qofka aad la joogo wixii la rabay leeyahay laakiin isla markaa daaqadii xirtay qofku wuxuu rabay ma helin adan wax ma dhageysanin hawadan iska xirteen waxdan isku qastay so actively u dhageyso qofkaaga marka second communication waxa sameeysa clear easy naxariis leh ku jirto it's okay ina express krisid baahidaada aadada waxaan u baahnaysan waabilow but approach ka saxda isticmaal maanta qof cawaadaan qorin dacwoonaya stuff
and remember kalsoonida markasta markuu dhiso waxyaabo waaweyn la kaliya qof bixisay iyo wadnaaga istaasiisay waxyaabo yariiska sameynaysa maalin lahayd kalsoonida qofka dhisi karo ina maqashitina waxyaabo ugu sameeysitina waxay dhiba ka ilaalisid ina daninaysid waxyaabo badan dhisi karo kalsoonida qofka so waxay u baahan tahay small consistent actions ina sameeysid marka si guud ma ku sii dheeraanay mowduuca kaliya arabina ka hadlo active listening-ka inuu xoojin karo xiriirkan meesha uu socdo inuu sii jiro inuusan noqon wax meesha ku eg dadka wax kala dila waa communication waxa isku keena waa communication isfahamka iyo isfaham darada labadaba communication-ka ka imaata marka muuqaalkan ku dheereynayna halaas ku soo koobaya maadaama xanuunsan cudurdaran ka dhiganaya waxa inoo balan insha Allah isbuuciga iyo muuqaal kaleeto oo la xiriira nolosha halkaas waxaan ugu dhamaaday xalqadii 14 ee barnaamijkeeni ma ugu dilaa ogaatid balanteena waa xiriir caafimaad qaba oo ku dhisan communication sax ah isdhageysi saameyn leh iyo isdaryeel thank you very much waa ku mahadsantiin saa muuqaal ku dhageysateen iisoo duceeyay in ilaahay caafimaad siiyo xanuunkan meesha kaga kaco thank you very much bye bye it's over again bye bye I'm taking what's mine yeah. Bye bye it's over